السلام عليكم أصحاب qiimaha qadarintiina wada salaamay dhammaantiin meel wada joogtiin walaalkiin iyo mar kale muuqaal kale maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay asxaabta maxay noloshaada ma ka qayb qaataan ama noloshaada maxay ku yihiin asxaabtaada marka maanta topigeena ayaa hadda hor usii galaynaa topigeena bilowgiisa waxaa weeyaan midda koowaad asxaabtaada say isku tihiin negativitygooda zaa'id miya inta kugu hareeraysan surroundingkaaga adi horumarkaaga ama horusocodkaaga say uga farceliyaan badankooda horta qof wax ogol ma jiro walaalkaaga adi wax kulama ogol markii laga soo tago kaas saaxiibka noloshaada dhib weyn u geysan karaa ama horumar weyn ku gaarsiin karaa saaxiibka saxda ah haddaad dooratid adduun iyo aakhiro waad liibaanaysaa laakiin saaxiib qaldan haddaad la talaaba qaadid adiguna waad ka baxday ka dhigan tahay qadka suu qadka ugu maqan yahay ayaa qadka ooga baxda adiguna marka saaxiibka saxda ah mar weliba noloshaada adaa hogaankeyga hayo saaxiibka waxaad doorataa saaxiibka salaada kugu bogaadiyo khayrka sadaqada kugu waaniyo oo meesha khayrka ah adduun iyo aakhiraba oo ku horseedo marka hadda asxaabteena badanka saa u ognahay ayninkina ogtihiin waxay boqolkiiba 90 waxay u badan yihiin yani highest number waxay u badan yihiin asxaabta oo maseerka badan asxaabta oo like jealousyga ah kuwaasna noloshaada hal step ma qaadaysid adoo dee baaba'ay ayaad realize gareynaysaa in kumbe ama malaha dadka igula jiro nolosha ama asxaabtii aan leeyahay dib u socodkeeda ka taliyo hore socodkeeda soo celiyo ama dagaal ugula jiro marka waxaad ku adkeyn kartaa ama iskaga reebi kartaa in aad hore dib u dhacdid waxaad iskaga reebi kartaa in aad dooratid asxaabta aad la wadaagi doontid waqtigan it is very important waan ka hadli doonaa laakiin asxaabta in aad iska ilaalisid asxaabta u badan the highest number waxaa waaye asxaabta aanan dooneynin in aad meel gaarin asxaabta waxaa is leedahay brother aniga kan saaxiibkey waaye waxaad ogaanaysaa saaxiibka saxda ah